السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا كل جين سأودنتهن وصاير الضاهي هلا يقرأ لي هذا وإن شاء الله بريها نودن أنا إذا بدأت قري لا فيديو كي قدام بي وأنا إذا كل أحد لي since that time ما في عنا واحد سنة إن لما عدينا إنه COVID-19 هي لكن update كان شخصيات وحوالي مركي أن شبتال كوعي أو هربت النبرة عافمات كل وعي أو وعي مرة بحيدة هايان استعمية كان موقدة لكن جروجا جتشو كتانا نفتك وعشومين سدا سيدة هايان الحمد لله لا نافي يقوم علنين ما أنت كنت بنا حنون سنة هاي لك وفي عنها وصفي عنانا استعمها عن سكو أركي إنتان البرنامج كنت سكروا وحواي قندو لكن قندadayda mayna gaarsiisnayn 37 iyo degree iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnay kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo la soo dhaafay markasta waa wacaaye وانا لا تشنايو waxay caafimaadka haasa ahaatee waxay igu la tirtad batalada isiyana raacay waxa kale iyadana xusuus mudan intaan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aana banaanka u bixin xanuunkaygu bilowdaaniga marka macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo igu yimid waaye xanuunka marka ilaahi baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegayo la ima test karaynin test la iguma sameynin lamana cadaynin inuu COVID-19 yahay laakiin ka markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhaban lagu dhahaa meel condition waxa Ingiriis lagu dhahaa Soomaali sardhaban lagu dhahaa marka sardhaban aan kale u garanayo Soomaaliga way ballaaran yahay waxa laga yaabaa inkana wax kale u taqaanaya kan sardhaban u aqaana saslaajigad sardhaban kaasoo ii qabanayay waan iska fiicanahay iska soo kacay qabaysanaay salaadeed waa tukana cunto waxa cuni kara cunaay bad laakiin ilaa hadda aan idin la hadlaayo ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunaya laakiin mana ii suxmi soo urayaan waxna ma ii dhadhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsanahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa waa yaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanina hadda waa kaas baabku ay xiran yahay kaliya inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay 3 ila nool midna hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka hadana aadana waa ay kaligay marka yaan la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinay dadka muslimka kuma dhacay waxa soo dhamaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaal ku dhacaa waxba ku dhacaa diinta rabta aaminsana waxaana waa cudur qof kastoo ku dhacaya laakiin la suroonaado oo la isku xiro qofaan laha qofci waa iga yaraaday aad u iga yaraaday qofca marka astaamahayga saasay ahaayeen qofba si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi markay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynayay iyo kuwa shaqeynayeen labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carra ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa cirka ka sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto qof sidaas needin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo aan isbitaal ma geeyna alxamdulillah ma baahanba gurigaaga joogsa ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga hadaad neefta kugu ceshonta bas soo neefna ma ilaahay ma igu ceelin alxamdulillah wa fiicana haddana waa soo reysano yaaba xilligaan oo kala qandhow badan ay saaknaa jirto hadda ay masaarno alxamdulillah marka taas waa taas dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambalaasta markii lagu wacmo kula raaci karaba
ina ogtiin in kala ma aqan ma kula raacayo haddii inta isbitaalka lagu geeyo la caddeeyo oo laga helo test lagugu sameyn kasto had testiga wayba yareeyeenba test lagugu sameeyana macnaheedu waxaa waaye absolutamento agtaada qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagaxa ayaa uga sii daraaya xanuunkii haaya okay hadday noqoto oo tii rabbi kuu timaado isbitaalka lagu geeyo ma raba inaad ka naxiyo laakiin realityga waxaa dadkaaga waa lasoo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin 14 berina weliba guriga inaa ku jirtiin waayo maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhinta oo guriga idinkula noolaa marka waa cid la ciirsi la-aan dadka badanaa xaalad adagaa lagu jiraa waxaan si gaara rabaa inaa uga hadlo oon dul maro maanta maadaama markii ugu horreyso xanuunka masaa uga soo kaca aan hadlaayo ay tahay hadalkina aada ugu dheeraada ma rabo marka waxaan rabaa inaa aada ulin kala hadlo xilligan oo kaleeto xilliyada welwelka badan yahay werwerka ku haynaayo aada u badan yahay xilligan oo kaleeto marka haddii markii hore adoo caadi ah mental health problem iyo depression iyo anxiety xilligan oo kale anxietyga aada u badan yahay because anxietyga waa werwer maxaa dhici doona maxaa kugu soo socda werwer taas waxaa looga gudbi karaa inaa isxasiliso isdejiso nafta haddii lasoo doonto meelaa kaga baxsanaysid male laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waaye talooyinka la bixinayo inaa raacdo inaa ahaato qof updated ah oo waxa jiroo lagu hadlaayo og meel kasta waa google haddaa furto waxaa ka hor imaanaya fariinta coronavirus waxaa ka hor imaanaya wadaytas carabi ahaa lahaa ingiriis ahaa leeda wada alla wada ka joogto adduunkii oo dhan qodka alertaa la siinaa marka wixii xugun ilaahay ah xugun ilaahay waa aad wax maki qaban kartid haka adinaa dadaasho lagugu leeya dadka kalena aadan hasin irsaaqada rabbiyaa bixiyo ilaahay irsaaqada bixiyo dadka wadanka ku nool inaan ku dayano ma aha anaga adiga dadkaana aad joogto ama shaqey ama shaqeyn xilligan adag lagu jiro waa la kafaalo qaada noloshaada ilaahay ka sukow waa la kafaalo qaada haddaa shaqaynaysana waa lagu kabaaya haddii aadan shaqaynayninna mar walba waxbaa lagu siinayay haddii aad ganacsi iyo kambani iyo shirkad iyo wax laheedna iyadana qaab kale wax lagugu siinaya dadkan UK jooga haddaa si gaara ula hadlo 6 bishan maanta 2 waayo bisha abriil 6deeda laga bilaabo ayaad arki doontaan warqada idin soo dhacaayo halkaasaana laga bilaabaya 6 abriil lagaaga bilaabaya lacagta lagugu caawinaayo hal sano camal waa laga qaybinaa marka 12 bilood loo qaybinaa 6 abriil ee sanadkan 2020 ilaa 6 kale abriil ee sanadka 2021 hadda saa u taqaan ayaa loo qaybinaa lacagta lagugu caawiyayo marka irsaaqada ilaahay bixi istajiib ragga Soomaaliyeed oo badanaa tagaa sida wadaaya oo taksiga ku cararaya qoysas badanaa arkaayo qayladooda isu yeerayso waxawaaye taksi hadaawada macnaheedu self employed aad tahay qof iskiis u shaqaystaa tahay maadaama aad tahay qof iskiis u shaqaysto macnaheeda waxaa waaye dowladdu way ku kabaysaa self employed kii dadka ahaa ama dadkii iskood u shaqaysanayo waa la kabayaa ayagana laakiin waxaa laga yaabaa sida kuwaan loogu bilaabayo bishaan dhammaadkeeda ama bishaan raggeeda inaan loogu bilaabin ayaga oo yara dib u yara dhacdaa dhici karta laakiin mar kastoo lagu kabaayo inta baxdo aad xaaskee caruurta xanuun u keeni lahayd qof immune system u leh waxaan ma jirto qof kasta ku dhaca waxaa kuu fiican inaad badbaadiso gurigaagana badbaadiso oo joogto gurigaaga iska ilaawa taxi xisna iska ilaawa because taxi is a customer service camal waa adoo qof sida qof dad badan ka dhex shaqeynaa camal ama dad qaadeen mahana ilmiina huu keenin cudur iyo xaasaskiina huu keenin oo day rabta uur iskale oo day rabta nuujinayso ilmo yaro yaro yiciisa
dad badan oo ku dhacay, dad badanaa dhintay. 563 qof aa dhimatay waddankan shala keliya. taar hadday gasho waa dhimahee madaxda guriga ku jiro, laakiin dadaalaa lagugu leeyahay inaad dadaasho. inaad dadaasho lagugu leeyahay. marka taasna waa taa. dood baa jirta waddankan laga doodaayo sidii review loogu samayn lahaa, dib loo eegi lahaa. wiigii saddexaad hal wiigaa noo dhiman, 3 wiiga hore oo la qabtay UK hal wiigaa dhiman, laakiin uma eka wiig oo in la qaadayo bandow maaragtay dadkan maaragtay la saaray. cid bandow la saartay maa dadka qofka wax muhiim u baxayo waa la ogol yahay. u baxi karaa, cunto waa soo gadan kartaa, daawo waa doonan kartaa. wixii oo non essentialka ahaa oo isbitaalada takhaatiirta loo arkayo dhowaa waa la baabi'iyey, waa lasoo kansalay. qof kasta qofkii tartar la ballansanaa laakiin aan cudurkaan ahayn waa la kansalay si shaqaalaha xoogooda iyo wixii way qatartara loo yareeyo dadka isbitaalada isbitaal tegista. waxaa la ogaaday in qatartiba kusii badanayso. marka talabaatii alla, laakiin dhagaysta talooyinka laydin siinayo waa muhiim. talooyinka waddanka aad joogto lagu siinayo inaad dhagaysato. waddankii dalkii haddaa joogto talooyinka madaxda hayasin dhagayso, waxay ku dhahaan yeel. talooyinka caafimaadka lagu siinayo yeel. ya fursaduhu isku mid ma ah. haddaa America joogto, haddaa Yurub joogto, dowladahaan aad la joogto ilaahay kaaga soo qaado noloshaada, waaba la kafaalo qaadaba. haddaad shaqaynaysana wuxuu lagu kabaaya. haddii aadan shaqaynaynin walba maadan shaqaynaynin halkii wax lagaa siinay ayaa lagaa siinaya. haddii kalena maxay ahayd toonay oo aad company iyo lahayd ama maaragta aad lahayd self employed aad ahayd ama taxi wada ama waxa wada ama dukaan lahayd ama maqaayad lahaydna maaragta شين بالغو كمان واحد بسيستم على صار سيستم كاس صار وبعدين لو قلنا ماشي تلفون ودر جوجل بدون جوجل تلفون كودر سكول منجرة لما آله وهاي وحب اللي مسمينه وهاي ما أنت بقى يهوجي هديله ده محاس بدلاي وحبس من بدلاي أنا كسايت كان إسكيرية والكفاحة بدل إسكيرية وكارسي درايا والولك ودي كارسي درايا حتى كور عجلة دهر وكل شيء قبل تطبضنا أركا واحد لا يرنتي إلهي غير هاي الشيء ما أنتو حين أركا حسا هذا السبت واحد لا إلهي غير هالشيء تدك كده حمق تدك حد لي كرا تدك وعفهم تدك الله حد لا تدك مساكين هاي جوج عشان مالك كل حد للغة دوده كل حد لها فهماني يا اللغة دوده كل حد لا أفهمه يا إن شاء الله وأنا قد ما دونا رمضان السعود ولا تمام وضع عمل مالهاس ولا قيرة يا إلهي قير كيسا إيمان دونا إلهي بأنا قد القاعدة دونا حنوك سبحانه وتعالى قاعد تسوي انتهي قرآن كان اسكا خريستا اسكا بريا لكن تلوين كعاف ما تكولا السينا حتى يل السنة هاي السنة تلوين كلا السينا راعة حلو سهلا معه أنا السيسر طبعا ويقبت هذا ولي نوع عشر كلا أبد كلا أي مقابل سمعناها أو نحسه ويقبت حتى أنا محيها توني ولي نحن نوعنا كلام معنا أرد كانت أنا تاد والوشوط حكو ترى وحكو ترى يمنا والولي يا دنك حيلها أرجع نقوم الدلو أرجع حكي سابع عذر كلاه كستشي صلاتين كذا إلى هاي بريا قرن كنا قستا اسمها ويرية ما أنت وادير تهي سمرتاي ما لقى لها تحيل حالك على حاجة على كلا ساعد بس بدش وطنك أنا جو حكى له الرنا الله بالساعدات بالساعدات وطنك أنا جو الرنا مش 6 ساعة أنا جو الرنجر استشي قلبي قد شيء شو كرجارة dadka dhalinyarada gawaarida wato dadka waayeelka ah oo guryaha ku jira u gargaara waxa ka warhaya ya
dad badanaa dhintay kuwa badanna waa dhiman doonaan ya ku jirnaa lama yaqaano laakiin qalbiga degsada isu duceeya iska warahaaya waxyaabaha danuubta iyo balaayada keenaaya oo aan shaqada ahayn meesha waxaa xaaladaaba taaganba iyadoo xaalad taagan maxaa wax kale maxaa ku gelinaa niyada degsada is caawiya isu gargaara ya telefishinka waa kasoo daaran yahay coronavirus UK latest waa loo waxaynayaa 12,949 qof ya 12,949 qof ayaa isbitaalada la geeyay ma garata dowladdiiba breaking news sameynayso sheegayso kasoo daaraya la socda waxay leedan dhahaa luuqadda hadaada aqoon qof kaloo taqaana ii sheegna dadka luuqadda ka saaya u macneeyo waxaa la dhahaa dadka wariyayaasha ah oo soomaalida ah la hadla dadka dad badanoo masaakiinaha joogo guryaha iskaga jiro marka horeba guryaha ku jira war badan aan la socon halka wara oo aniga aan maanta ka naxay waxa waaye wadankan hay-adda dhaqaatiirta ayaa dowladdii iyada tashanaya markaas waxaa la yiri ciddii aad isbitaaladii dadkii isbitaalka la geynayay oo caawinaada rabay iyo dadkii kale ayaa iyo maxay qalabkii la haystay ayaa kala badan qalabkii ayaa dadkii badan ka waxaa haddii la arko qofka inuunu fursad badan haysan oo ku badbaadayo siiya fursadda qof badbaadayo macnaha qofka dila lagama wada laakiin oxygentii qoftaan aada u jeedin boqolley markii la fiiro 80% qofka inuu dhimanayo aa u jeedin ha ku khasaarinaya macnaha qofka kale noolaanayo gusaa heerkaas fiiri desperationka ilaa heerka la gaaro fiiri xaaladda inay xuntay kuu sheegay haddana inaan qalbiga iska kicino waxa ma tarayso guriga joog haddii lagu yiri guriga joog haddaaba caafimaad qabto ama aa caymato guriga joogi kartid joog guriga waxa u wareega cadays ma yaala waxa maqlaay goobo shisho lagu cabo oo albaabka gadaala la furay maxaa idin dhigay dhibkaas maxaa idin geey awba shisho qayr ma lahayn shisho iyo sigaar iyo waxaas awba qayr ma lahayn haddana in loo kala dhunto dad albaabka gadaala laga soo galo waxaas maxay tahay but disgusting thing to do like wax disgusting oo la sameeyo runtii jimicsiga jirka iyadana ku dadaala gurigaaga dhexdiisa ku samey kartaa light exercise qasab maaha inaad jim aado jim iyo waxaas waa xiranta guriga dhexdiis bush up ku suubi haddaad suubi kartid xoogaa yaroo fudud suubi gabdhihii jimka yaqiinay aawe oo garanaya oo soomaalida ahaa fariidiinta ahaa gabdhihii jimka garanaya gabdho badan oo fitnesska garanaya aan qabnaa oo soomaali ah gabdhahaan u sameeya escape u sameeya lama rabo meel oo hadhow la koobiyay YouTube laga shaayo lama rabo laakiin meel sakareedaho dadka qaarkood yaa raba intaad tirahay anigaa raba markay isbuukan garayaan escape ugu sameeya bara jim yar oo maaragtay iska fudud oo qofku samey karo bara ya isdhegeysta talooyinka caafimaadka oo leeda siinayo absolutely dhegeysta anuu intaas hadda fiiri intaan xanuunsanaa maanta caawa ku taban waay waa wacaaye waxaan u malaynaa wicidda waxaan bilaabay maalinta afraad markaan xanuunsanahay hore kama wicin 4 maalmood markaan xanuunsanayo xaaladeeda aan u jeedo inay garaaba tahay aada u daran tahay aan wacaaye waxay dhahanaan yeelay saas su-aala lagu weydiinaa su-aalo badana lagu weydiinaa waa marka qaar qanada aada iga tanbateen ma fahmayni waxay iweydiinayaan ilmahaygaa u dhiibaayo telefoonka oo isagana cunugeenu uga dhaqaaqa ay too 3 mitir iyo jirsad hoosaan u dhahaa markaasaan sidaan marka qaar qandhada iga tanbadinaysa ya qabatee qadar alla waa la qaataa aada bisaa uga baxsan karta ma fahamteen
cuntada waa isku qasbaay dhagax inaa cunaayo inaa ciid cunaayo ma kala aqaan ilaa hadda ima dhadhamayso urtiima wax ma iyo uraayo wax ma ii dhadhamaayaan haddana wixii la yiraah waa inaan yeelo waa ku qasbanaa ma garata wixii la yiraah inaan yeelo waa ka madax adeeg iyo taastaduura iyo geeljiranimada iyo meesha xagga namaantinimada iyo reer guuraanimadii aan dhaqanka u lahayn iska daaya shisha albaabka gadaal laga furaa iyo maqaayada albaabka gadaal laga furaa waxaas xitaa iska dhaaf waxaas iska dhaaf iska dhaaf alxamdulilah intii xanuunsan allaha caafiya ilaahay baa ka baryaynaa in ilaahay caafiyo intii caafimaad qabtan ilaahay caafimaadka u siyaadiyo laakiin dhibaato hor leh ha isgelinina intaana kusoo 33,778 soddon ya 330,778 iyo 63 qof inta la testa garay ee positive noqdeen UK inta may ku taallaa maalkanay ku taallaa ya halkan kuma taal marka xawaa ilaahay aamina waxaan maaragtay quruufaadka ah ood la wareegaysin iska daay gaaladaa saanaya hebelooy baa saana gaalada xaa kuu keena adiga oo moogid dhul gaala ah haddaadba ku dhex nooshahay ya waayaad gaaladaad la nooshahay maqashaade waxay ku yidhaahaan dhagayso haddaad rabtaa dhul islaama joogto gurigaagaad joogi lahayd sooma gubi lahayn joog dhagayso caafimaadka tareenka caafimaadka u siinaa dhagayso madax adeega iska dhaaf ha bixina haddii laga dhamacneeda ha bixina waa ilamaa wax muhiim u bixis nimankaan tagaasada kuwada ordaay iska joojiyi tahay ilaahay arsaaqadaha rabbi arsaaqadaha waaqay ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqadaha naagtaada ilmaha cudur ha u keenin wixii shaqo oo dad waxaa jira shaqada qasab tahay inay aadaan wixii qasab isbarotagtakare wax gasho waxaa samayso markaa guriga timaad dharka dhan iska bixi dharkaas ku noqosho bala dhaq isnot easy anigoo si fudud iigu dhacay si dhulka ii dhigayo kaanada maaji haddaa istaago waana meelaha qabsado waa gabgaba tabardarro leh oo wareera kasaa lugeyga isdhaafaan kasaa indhahay madoobaanaay itaal darro daraadeed waana qofkaygii sida ugu fudud ugu dhacay si ugu fudud please ismaqla isdhegaysta isdhegaysta ismaqta ragga caafimaadka dhegaysta talooyinka leeda siinaya dhegaysta telefishinka la socda soomaaliya waddankeeni waaye ilaahay maaragtay ha caafiyo dadkeenana ilaahay subxaanahu watacaala waxaa uga baryaaya inuuna u keenin rabbi subxaanahu watacaala salaadaan tukada waa u baryaaya inaan ilaahay u keenin because waa waddan maskiin ahaan nahay ma ka bixi karno waxyaabaha annakiis waddamadii horuu mara joogaa sidaan noqon xaaladda waddamada aan joogno isaas tahay ma laga bixi karo ya markan haddana xilli waxaan jirin laga hadlo ma ah iyo dembi iyo dowladaha saantir iyo mucaaradkaa saanyir dhimay sidaaba lama waxaa ku geliya waxaas it's not really easy sanadka maanta ee qandhada i qabatay it's not really easy markaan ku yidhi ma imaana isbitaalka ma lay tasti garaynaa waxaa la iigu yidhi maya bikaas xaaladaada waaba fiican tahaba neefta maa kugu ceshunta maya alxamdulilah neef iguma ceshunay so breathing problem maqtid maya bas gurigaaga joog waa inaan joogo alxamdulilah inaad tiraago liba adoo abaal qaba inaa alxamdulilah dhahdeed waa it's not really easy qofka u maleeya covid-19 inuu sahlan yahay it's not really easy wax sahlan maaha anaa runta idin sheegaya absolute ma sahla kii caafimaad leh ilaahay ku shukro alxamdulilah kii xanuunsan ilaahay toog talooyinka caafimaadka yaal ama xanuunsano ama ha xanuunsano gurigaa ka bixi duuqdho gurigaa ka bixi waa bas
waa baxaa iyo xagaa doonahaa iyo tagsigaan fuuli jiraa fuulaa iyo waxaa saf maaha iska daaya madax adag iska daaya siiba nimanka madaxa adag maxaa tagsi ku keeni naagtii ilmihi haddaad cudur u geyso what's the point maxaa tagsi ku keenta lafihiina yareer waxaagay u tura jooga guryihin ya khayraa iskuugnaa waa idinka tagaa insha allah anoo intaan dhaama berri idin soo noqonaa wixii kaleeto usoo saa-ida laakiin saas u ogaada dadka isbitaala dadku waa ka bateen dadka gurigiina joogaa la dhahoyaa haddaana neefta kugu ceshoonin joog beryihii hore qofka in la tastagareeyo iyo la ogolaayo hadda waxaa lagu dhahaa haba imaanin joog ma neefsan kartaa haa joog isbitaalka waxaa dadkia ka tanbadiy kuwii aan neefsan karinaa ka tanbadiya isbitaalka ciyaar ma ah laakiin mar kasta way tahay one inaa wacdo talooyinka weydiiso wac weydii talooyinka sidanaa leehaayaa su-aalaha lagu weydiino su-aalaha ka jawaab lagu weydiinayo ma fahamta ilaah hada caafiya inta xanuunsa allaha caafiya inta dhimata allaha u naxariisto toodiyaa gashay 1 second ma lagugu daraayo haddii ay ku timaado qadarta ibe oo maaragtay taadii ay gasho ma lagugu daraayo 1 second ma lagugu daraayo ma lagugu daraayo khayr iskuugnahay khayr ayaa iskuugnahay inta xanuunsa allaha caafiya inta caafimaad qabta allaha u siyaadiyo inta dhimata naxariista janno allaha siiyo laakiin dhagaysta talooyinka leeda siinayo culimo badanoo soomaaliyeed xataa aa bilaaben inay hadlaan dhagaysta hadalka culimada masaajidadii la xiraa intaa ku jirtaa masaajidadii la xira ya masaajidadii baytullaahiga aqoonfi lagu jabiyey markaa adiga maa lagugu barbaryaa gurigaaga joog waa cajiib waay qof baa qof soo wacaya waaba qofaa kusoo wacaya wuxuu ku leeyahay gurigaa dareeskiisa si aan imaaday maxaa igu imaanaya covid-19 aaba jiray anina waa xanuunsanaa inaan kugu daarto ma rabo adigana ma rabo inaan balaayo kale ii keento joog gurigaaga dadku in runta la isku sheego ha hasin dadka ha hasin hadda ani waa xanuunsanaa 10 bir daacidaha ku wareega kabar how is that soo qaadsiin maayo xanuunkii oo sidoo aniga iigu dhac si ka darnaa laga yaabaa qofkaan qaadsiin iigu dhac kuweygiian qolka iskaga xira wallahi waa kaas albaabka xiranya ma soo geli karaa anaa gurigaan ku jiro kuwa aniga aan dhalay oo guriga la jooga isku qol ma ku jirno sida saa u xanuunsan hay waa cabsaya waa rabad iyo waxaas ma jirto waxaas iska ilaawa ninkaa cabso waa loo cabsadaa talooyinka la idin siinaayo raaca gaalada adaa u yimid adaa gurigoodii ku nabadgelin waaya oo u imaada waddankaaga adaa soo gubay adaa u imaaday dadkaad u timid ixtiraam la joogtay asalaamu calaykum khayraa iskoognahay waa ka baxayaa 30 daqiiqo ku dhawaada hadlaay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allah berrito anoo intaan ka fiican adin la soo noqon doonaa daily update waa kaas barnaamijkan sheer gareeya cidaad is leedihiin waa anfacaya ya ilaahay waxaa kaga baryayaa inuu caafimaad idin siiyo qof walba inuu ilaahay meeshiisa caafimaad ku siiyo ballanteena aan madax adeeg iska dayna de